iyo xeryo ciidan ka dhigtaan degmada Gurceel ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilan dowladda Galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax aysan istaajinayn dhibaatadooda inay isdifaacdo taasna dowladda Galmudug shacabkeeda iyo dadkeeda ku matashaa maxaa yeelay waxay duulaan ku yihiin dowladnimadooda nabadooda cadaaladooda iyo sharcigooda iyo wajirkooda waxaan cadaynaynaa oon ku celinaynaa mowqifka Galmudug wuxuu yahay qof kasta muwaadin kasta oo reer Galmudug oo tabasho qaba inay dhageysato la fariisato laga qanciyo wax kasta uu xaq u leeyahay ama uu tabasho u leeyahay uu tabanayo waxaynan dowladda Galmudug marna aqbalayn shacabkeeda iyo dadkeedana ku hogaamisaa xoog hub iyo qori caaradiis in dad iyo deegaanta lagu qabsado lagu kala gooyo Galmudugna lagu dowladnimadeeda iyo sharciyadeeda lagu soo duulo sidaasna damac shakhsiya lagu xaqiijiyo manaasib iyo kuraas lagu raadiyo in la shito xaaba laga dhigto dhalinyaro reer Galmudug oo qiimo badan taas ma aqbalayso Galmudug mana jirto meel ay ka socoto adduunka ay ka shaqeynayso waxayna Galmudug kala mid tahay shucuubta caalamka kala mid tahay shucuubta Soomaaliyeed kala mid tahay mana jideynaysa Galmudug wada xun oo Soomaali u horseeda dariiq madow intaas taas uga baxo waxaan la soconnaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada Galmudug gaar ahaan Gurceel ka socota oo dacminaya oo gacan siinaya oo Soomaali iyo ajnabiba leh aad baan uga xunna in maanta 2021 aan aragno si raqiis kaas dad u fakaraya oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dowlad goboleed walaalahooda waxaan inta u dhaafimayno cadeymaheedii haynaa mar kale aan ka hadlaynaa waa soo bandhigaynaa si cad insha Allah ugu dambeyn bulshada reer Galmudug dhammaanteen waxaa noo taala inaan gacmaha isqabsano howlo waaweyn oo hor yaalan aan gudano oo ay koow ka tahay la dagaalanka argagixisada oo laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinkii heer federaal nagama leexinaysa wadada nagamana duwayso inaan la dagaalano argagixisada iyo inaan doorashooyinkii dalku sidii loogu talagalay uga dhacaan insha Allah taala waxaan soo rajeynaynaa soo daarmaynaa guul wada jir iyo midnimo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.